Soomaaliya dhaqaalaheeda iyo waxa ay leedahay waa ka hadlayaa daa'iraado ilaa berri subax waa ka hadli karaa tusaalooyinkii ugu yaraa professor maxamuud uu sheegay marka aad qiyaastid Soomaaliya dhulka ay leedahay 640,000 oo square kilometers ayuu ku tilmaamay waa runtii dhulkaas wuxuu ka bilowdaa Raskamboni markaa ka soo bilowday Soomaaliya oo dhan lama dhihi karo waa Soomaaliya Soomaali ma dhihin Soomaaliya Raskamboni ka soo bilaabanaya wuxuu tagayaa Gaardafooy wuxuu tagayaa Looyacadda iyo Malaha dhulka intaa dhan haddaan idiin sheego yaa ku nool dadka ku nool tiradiisa markaad aragtid dhulka intaa dhan wuxuu la mid yahay Talyaaniga dhulkiisa iyo Faransa la isku daray Soomaaliya ka weyn buuq qaata dhigta Soomaali ayaa ka weyn dadka ku nool marka qiyaastii ugu dambeysay markii la sameeyay ayaamahan dambe kuwa la sameeyay waxay ahayd 10 kilomitir hal ruuxa ku nool 10 kilomitir square hal qof ilaahay idinku dhaari dhulka intaa dhan nicmadaas leh 10 kilomitir dinba xambar laga bedelay waxa loo bedelay tuulo la yiraahdo aw barre reer xamar waa aw barre loo bedelay ma yaqaan aw barre meel tawiligi shangaani iyo xamarooyina ma dhaaf waa la waday beledweyne markuu joogo wuxuu dhahay aw barre aw yaa ku gaaraya waa la waday waxa la geeyay Dhuusamareeb ma joogno yaa ku gaaraya waa la waday gaalkacya la geeyay waxa la yiraahday ma dhamaanino sheeka haysaal inta loo socdaa oo dhan marka inta ka badan waxaan ka wada wax way garowda aw barre waxay ku taal waxay u dhowdahay maxay xuduudda Djibouti garow markay gaartay kala baro bar ma gaarin markii garow uu garaa la yiraahday haddana oo dhan markaas aniga oo sheekeynaysaa Soomaaliya kooga laba ma joogo dadkan waa waalayeen maxaa dhacay intii aan soo maray dad ma ku arkina inta loo socdaa oo dhan macna waxa arkaysiin dhulkiin inta uu dhan yahay ay Soomaali fahmi laadeen khayraadka markaan soo noqday inaan ka hadlo marka Soomaaliya maxay u dagi laadahay isma weydiin dhalinyaradu wadankan wuxuu u dagi laayay mush macquul 19 ilaa maanta Soomaaliya inay degi weyso waxaan idiin sheegay Soomaali isma haysato khayraadka ay leedahayna Ilaahay ma tusin wadankan 1978 badankiin dadaan dhalanaa idinka buuxa waxaan tagay Brunei meel la yiraahdo jasiirad ku taal badweynta Pacific waxaan u shaqeynayaa qorsheynta waxaan raadinaynaa mucaawinad dalka in loo helo meeshaan tagnay waa la hadalnay waana la waday dawladdu waana la waday badana la geeyay oo shidaal laga soo saaray niman indha yar yar iyo gaala cadcad ay joogo nama soo noqon waligeed dad madow ma arag markaan u tagno horta waa naga cuudu bilaystay waa u tagnay dad noolaanahay oo kano waxay yiraahdeen intee ka imaateen Afrikaan ka nimid oo go'deera maabka meesha u suran waxay yiraahdeen ka intee Afrika geeskan Horn of Africa Soomaaliya maxaa soo raadisay su'aasha mucaawanaan raadinayn qosolay la dhacay maxaa dhacay waxaan noogu qoslaysa shidaal ma soo saartiinoo yiri maya maba naqaan jawaabtaydiisa waa 78 maantana shidaal la raadinaya wadankan wad qoway waa tigi doonaa laakiin taariikhina u sheegaan rabaa ma dhici kartay Soomaaliya shidaal la'aan inay ahaato waa 78 imisa 78 dhalatay oo meeshan joogta yara yaryihiin Sooma ya 78 ma dhalana oo maleynaa ha
والله أنا بين دي شيء ما دعي كرتوله وويديو ما حد عار سيدا أنا جو إنجنير مئي ما نقياسي كرو ويجري ولقى وبي بيه سهوس من السعودان من سكرة السعودان هو يا نكن سيدا جاهل لماذا وحكوش حرو بقد وحو هذا هوس وهذا بيها ماشي بيها مال دقان هذا الشاب ما هذا هي الصوماليا قلوبك سيد ماشي كقتها الفير قلوبك وتقني سما قلوبك وحوي خريطة دو وريكسن مرك فير الصومالي سيدا وطاب شدالك كسب حق قلب كنا فير انت يسجرا قلب كورونا جرا قاعد كعربين لشيء جاي صومالينا هو سيكوتاب مرة هو مهلك لا يقال دعيسا سيكذا سينا سيوضو وحوي إن وبيجو كر عادو وهل كاشدال لقى هلا صومالينا شدال كأيسن كل عقل ما هنو ما أنت يتاجن تامرك صوماليا وحان يدي شيء هاي الشدال إني لا هذا وحيا بدن وأنا شيء كرن وحا مرخات فري رسول يحيى كلي ويجي سيسيه هدو شيء وأسوأ نول وحرمت إلا سو شيء فعلا وبقي أنا كدرن ويدي شيء وأنا قرايا مركان دنتال أيان سو ساري دونا ودن كان وحا كجرا خيرات هذا الملايين تسألك لا ينسايا شدالك أنت عندك هو ما أنت لقيل هل عيلو شيء كلي سوالي شدال وهذا اللي هذا كسر أحد هذا تاسي أو حال رفع عقلي السياسة دي لوسو صار لها كي أنت كبحنا وحنا هذا يا مركا حيبتا المرايا بدأ قعنت هذا ميديك وحاكيال مركا لقب بلا جزيرة ما ليرا سمع هذا كيسان محاكيال بورو بعادة بورو بعادة وراس waxay soconaan ilaa kismaayo buuraha silicate wax la yiraahdo silicate ma taqaaneen waa wax dhalada laga sameeyo oo dabiici ah oo sidoodii ah waa natural resources dabiica ilaahay uu siiyay waana hubaa waxyaabo badan oo sheegi karana jiroon habeenkii dayaarada waa maqlaan kulley waxay daldalaan ma aqaan waddankaas aad leedahay silicate meel soomaaliya adduunka uga badan male waxaa wadanaa okyaalayaal bakeeri dhalo oo xuusa kulli dibadda lagaga keena sooma bacadkaasaa laga sameeya waa ka tegaya waxaa kaloon ii sheegaya bahalkan la yidhaahdo sibirka ama shameentada waa dhagax la shiiday waa maqasheen kulley warshadda sibirka berbera sooma waa ku taal ilaa hadda ayagaa reer xataa iskugu qabsanaa waxyaabaha la yaabaysa buurahaas ujeedadoodii ee ku yaal dhinaca berbera shameento waa ka soo tag goobiga jubbal soo raacaya waa maqasheenaa mala markabley meel la yiraahdo ama mashruuc la dhihi jiray dooxada jubba baar dheer ku yaal buurahaas aad arkaysaan ilaa geedo gaaraya waa sibir shameento waa dalkiina rabaa inaa idin baro waxa yaal inaad ogaataan waxaa soo haray marara website-yada waxaa ku arkaysaa dahabaa la helay bannaanka yaal gobollada qaarkood haddaan sheego waxaan ka cabsanaa qabiil iyo dad inay isku dilaan hadda isu qabsadaan soomaaliya dahabay leedahay waa waxyaabaha alle markaan dhinto aad ogaan doonta dahabay leedahay soomaaliya Ethiopia dahab soo saarta kama dahab yarin ayadana sidaa inaad u ogaataan waxa soo haray Professor Maxamuud wuxuu taabtay kaliya beerihii kaliya inuu taabto kaliya kor yar ka taabto Soomaaliya waxay leedahay 8 milyan iyo bar oo beer ah haddaad ku ridaa
waxaad ku ridaa magaaladan muqdisho aan ku tijaabina annaga 8 milyan iyo bar oo dhul oo wixii lagu riday ka soo baxaya ma idinla tahay xamar cambe inuu ka baxayo yaa arkay hal qof ay sheego intuu ku yaal halkee isbitaalka madiina tag geedkan ku beeraa ku yaal wuu ka baxaya annagana maxaan beerannaa geed hindi munashibi geed hindi dadku beertaa guryihiinna ku beer cambaa waa soo baxaya waa xamar meel kale kama hadlayo waxaa soo haray professor maxamuud digir keliya sheegay digir keliya maaha gobollada mudug way yartiin go'aso ayaa yaqaan waxa go'aso yaqaan ma jiro marka adiga intee ku dhalatay dhusmareeb waa sheegi karaa qofku markuu ii sheego meeshuu aabbihi hooyadii ka yimaadaan sheegi karaa go'aso waa raashin kale la cuno waa abaar la'aan waa baxaysa xoolahan waa cunaan ma isticmaalno lama isticmaalo xoolahan marka intaas beeraha markaa idinkaga taabto xoolahan u soo noqonay Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa xoolaheeda nool 45 milyan oo neef meel ku qorto I hope arday jaamiciyiin aad tihiin daatadan inaad gacanta ku haysaan berito macallimiin aad noqonaysaan berito mas'uuliyiin aad noqonaysaan uma imaanin meesha annaga inaan idinka idiin sheegno wax inaad barataan aan rabnaa 45 milyan oo neef oo xoola ay Soomaaliya leedahay abaar kastoo dhacda Soomaaliya xoolaheeda waa joogaan wada aragteen oo malaynaa abaaraha maxaa keena marka waxaa badan xoolaha dhulka daaqaya iyo awoodda cawska dhulka uu leeyahay cagaarka dhulka uu leeyahay marka xoolaha waa aragteen geela muxuu cunaa dhulkana waa cunaa geedkan korona waa cunaa aw ari iyo ceesaan maxay saban wax allaala wax dhulka yaala cunay maanta dhan ayax oo kale waa ayax oo kale eber ay ka dhigay maxaa imaanaya marka geedihiina qalalaan caws dhulka uu ka tago maxaa imaanaya environmental change soo ahayn waa kulley inaa qaadateen oo mala isbedelka cimilada laga hadlayo adduunka haddii la waayo geed haddii la waayo caleen haddii la waayo geed caleen leh maxaa dhalanaya evaporation dhulka waxaa ku dhacaya nabaad guur abaar baa dhalanaysa marka ilaaha naga soo gaara annaga waxba ma aanan qabanin waxaad arkaysaa marka in la qaylo abaar aan haysee xaggee ka dhacday mar labaad haddana roob markuu da'o biyaha bataan waxaadan dhinac kale waxaa lagaala imaanaya wax la yidhaahdo fatahaadaa dhacday oo laba abaar laba weji lawa marna dadaa ku dhammaanaya xoolo marna sidoo labada midna xoolaha 45 milyan waay professorku wuxuu tilmaamay Australia geel dad cunaayo weli ma maqashaan geel dad cunaayo waa waxay nagula tartamayaan bani aadan cuna waa ka carara waa forest ma cunaan ayaga waa soo qabtaan daawisiiyaan waa soo diraan kaayaga caws oo cunaaya bani aadanna ma cuno wax ka fiicanna ma leh haddana ma tartami karno aqoon la'aan ay jirto waddankan la garanay buuraha markaan u soo noqdo professor Yaxya Hadaay meel yar u taabtay wuxuu soo qaaday macallin aan jeeso meel ku dhigin waddanka isbitaalada waa aragtay qofka markuu joogo maxaa lagu sameeyaa jeesa lagu xiraa soo ma jeesada bannaankana lagu keeno Soomaaliyana waa leedahay ka warramo isbitaalka jeesada waxaa laga keenaa waa Turki ama England ama magaciisa Soomaaliyana waa leedahay gibsi ma la yiraahdaa buuraha waa ya istakiina lagu keeno ma quraca inta goysaan oo aragtay intuu daya halkaa ku tafay gabadha atrishada waxay tagaysaa suuq supermarket istakinka kaas ma hadda waxaaba la gaaray plastic in lagu fadho
cirbadda bahalka yarna meeshuu yaallaa waddanka wax ka fikiraya waddanka dhaqaalihiisii mala oo ku dheeraan lahaa laakiin waqtigaa gaaban natural resourceska intaa inaan ku gaabayaan jeclahay tusaalaha ugu dambeeya hal meela inaan ka tuso marbe Soomaaliya waxaa ku yaal tuulo la yiraahdo Yamani waxay ku taal Jubbada Hoose nasiib darro colaado darteed aan u tegi karin tuuladaas badda afkeeda ku taal beeray leedahay xoolay leedahay kalluunay leedahay waa hal tuulo tusaalaha inaan beertii aad arkaysaa ratib balka ka cunaaya balkiiu beerta ka cunaaya sayntiisa dambena waxaa dhibaya wax la yiraahdo malaay kalluun mucjiza rabbaani ratigii ayaa waa xoolo waa ujeedaa afka wuxuu ku hayaa balkii oo galleyda baxda sayntiisana wuxuu saa ka leeyahay malaay boodboodaayo oo badda ah halku qorta Yamaniya la yiraahdaa raadiya maafka ka raadiya daayasha bimacnaa waxaa arkaysaa waddankan xooluu leeyahay beeruu leeyahay kalluunuu leeyahay wax ka faa'iidaystuu leeyahay gabagabadii markaan u soo noqdo inaan xiraan jeclahay